السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عروري maya ciyaal sidoo kale maya waxaad tihiin saaxiibaday aan jeclahay. magacaygu waa Cumar Maxamed Inshaar. ku soo dhowaada kanaalkeena ogaansho qaybta saaxiibada yaryarka. qisada Xafsa iyo kaymaha Amazon si wada jir ah ayaan u sheekaysan doonaa. daafaha adduunkana ugu soo wareegaynaa. saaxiibayaal, qisooyinka iyo safarkeena caalamka waxaana raaci doona saaxiibteen Xafsa oo aad si fiican isu baran doontaan. ila soo dhaweeya Xafsa. saaxiibayaal, aan ku bilowno qisada saaxiibteen Xafsa. xafsa waa gabar yar waxayna ku nooshay magaalo lagu magacaabo Barwaaqo Sooran. magaalo guryo isi saaran leh, dhul cagaare ka dul dhisan, dhinacyadana ay ka jiraan biyo dhac aad u qurux badan. dhabarka dambena waxaa ka jira buuro aad u waaweyn oo qurux badan. magaaladan waxay leedahay wadooyin nadiifa, guryo qurxan. magaalada saaxiibteen waxaa ku taalla maktabad ay kutub badan yaalaan. maktabadan ay Xafsa ku jirtaa hadda. wax akhrintu waa shay aad iyo aad u fiican. Xafsa waxay aad u jeceshahay in ay wax akhriso, akhrinta kutubta kala duwan. saaxiibayaal, maalin ayaa Xafsa iyadoo maktabadda joogto gacanteeda waxaa soo galay buug ciwaankiisu yahay kaymaha Amazon. aad ayay ola yaabtay magaca buugga. kaymaha Amazon xaggay ku yaalaan ayay isweydiisay. buugga fur, kadibna arag meesha ay ku taalla Amazon ayay isku qancisay. waxay akhrisay qisooyin cajiiba oo ka hadlayo kaymaha Amazon. aad ayayna ola yaabtay. kayn waxaa laga wadaa meel ay geedo badan ku yaalaan. geed lagu daray geed, dabcan waxay la mid yihiin laba geed. geedo lagu daray geedo kalena waxay la mid yihiin kayn, dhul geedo badan ay ku yaalaan. waxay ogaatay in kaymaha Amazon yihiin kuwa aad u qurux badan, aad u sirar badan, bahalo badanna ay ku nool yihiin. maadaama ay gabar geesi ah tahay, waxay niyadda gashatay in ay mar aado kaymahaas cajiibka. kadib markay dhammaysay buugga, waxay ku soo laabatay guriga ayadoo su'aalo badan isweydiinayso. waa in aan u safraa Amazon. waa in aan mar uun booqdaa kaymahaas aadka u quruxda badan. habeenkaas hurda kamayna imaanin. waxay rabtaa in ay aado kaymaha Amazon ee ay buugga ka soo akhrisay. subaxdii markay qorraxda soo baxday ayay hooyadeed u sheegtay in ay jeceshahay u safridda kaymaha Amazon. hooyadeed ayaa la yaabtay oo tidhi, xafsa, kaymaha Amazon waxay ku yaalaan galbeedka caalamka, dhul aad u fog oo Baraasiil lagu magacaabo. adigana waxaad joogtaa magaalada Barwaaqo Sooran ee bariga Afrika. hooyo, waan ogahay arrinkaas in ay naga fog tahay, laakiin qofka waxa uu maskaxdiisa geliyo maalin ayay noqon waaqic hor yaallo. kadib baryo iyo wadahadal, xafsa waxaa loo oggolaaday in ay aado kaymaha Amazon. waa gabar geesi ah. boorsadeeda ayay garabka suratay. boorso gabdheed aad u qurxan. boorso aad u qurxan oo ay dhabarka dambe uga sawiran tahay mukulaal ama yaanyuur. waxayna isu diyaarisay fuulidda tareenka lagu magacaabo dheereeye oo dhulka hoos maro. waxay ka raacday magaalada Barwaaqo Sooran. wuxuu hoos maraa dhulka. biyaha waa tareen cajiiba. tareenka ayaa hadda dhaqaaqi rabo. subxaana alladii sakhara lanaa haada wamaa kunnaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun. waxaan ku wajahannahay kaymaha Amazon, gaar ahaan waddanka Baraasiil. suumanka xirta, isdiyaariyana waan dhaqaaqaynaa. kadib safar 5 maalin ah waxay gaartay waddanka lagu magacaabo Baraasiil ee ay ku taalla kaymaha Amazon, gaar ahaan magaalada Manaus. mudanayaal, dadka saaran tareenka, waxaan soo gaarnay magaalada Manaus ee Baraasiil. fadlan
si tartiiba oo degan aan uga degna tareenka. waad mahadsantihiin. xafsa way daalan tahay. waa in ay seexataa si ay berri u aado kaymaha Amazon. waana sida dhacday oo way seexatay xafso, laakiin qorraxda markay soo baxday ayay isu diyaarisay aadidda kaymaha Amazon, waxayna u dhaqaaqday xafiiska laga diiwaan geliyo dadka dalxiisayaasha. saaxiibayaal, waddankan Brazil waxaa looga hadlaa af lagu magacaabo Burtuqiiska. saaxiibtan xafsana ma taqaana afkaas. haddaba maxay samayn? maxaa xalla? siday oola xiriiri dadkan? waxay ku qasbanaatay in ay kula hadasho tilmaamaha gacanta sidan oo kale. waxaa lagu yidhi waxaa lagu raacin gabar ku tusta kaymaha jid aqoon kuu noqoto. laakiin saaxiibtan xafsa way diiday. waa geesi, keligay ayaa aaday. sidaas ayay tidhi. intii ay sii socotay ayay waddada waxay ku aragtay mas aad u weyn oo lagu magacaabo anaconda, Soomaali ahaanna jibis ama jibiso. yaa allah, weynaa maskaan. waddankan Brazil bahalla badanaa. haddaba xafsa waxay soo gashay gudaha kaymaha Amazon ee ay jeclayd. waaw, qurux badanaa. geeda waaweyn, cagaar, biyo, shimbiro midabyo kala duwan leh. hoos u hadla saaxiibayaal, bahallaha yayna maqlin xafso. aamusa. xafso waxay dhex socotaa kaymaha aadka u cabsida badan, laakiin waa geesi, ma baqayso. waxay aragtay bahal lagu magacaabo jaguarka madow oo ah nooc shabeelka ka mida, lagana hela kaymaha Amazon, magacaana loo yaqaan. alla amuu xafso arkaa bahalkan khatarta. waana sida dhacday. shanqarta xafsa ayuu maqlay, kadibna wuu ku soo orday. wuu ka daba orday xafsa, wuu cayrsaday. ayadana way carartay. waa geesi, laakiin la iskama celin kara bahalkan aadka u xooga badan. kaymaha Amazon waxaa mara webiya badan, waxaana ku nool kalluun ama malay lagu magacaabo piranha. magaciisa saaxiibayaal waa piranha. waa kalluun halis ah oo wixii biyaha soo galo ilbiriqsiyo ku kala jaraayo. saaxiibayaal, xafso saaxiibteen way awoodi weyday in ay biyaha webiga gasho si ay uga badbaado bahalka ku soo socdo. maxay samayn? dhinac waxaa ka jira webiga, dhinaca kalena waxaa soo ordaayo bahalkii madooba. webiga hadday gasho waxaa kala jari kalluunka lagu magacaabo piranha ee aadka khatarta u ah. hadday istaagtana waxaa ku soo ordaayo jaguarka madow. way istaagtay. dhagax ayay gacanta ku qabsatay ayadoo leh, kaalay jaguar, kaalay iska kay celi. waxaa soo hor istaagay jaguarkii. waa la isfiiriyey. indhaha la iska fiiriyey. ayagoo is-hortaagan ayaa waxaa kaynta ka soo baxay jibis, loona yaqaana anaconda. waana bahalkii weynaa ee xafso ku soo aragtay waddada intii ay soo socotay. jaguarka wuxuu ka baqaa anacondada, wuuna cararay. jibistu waa mas aad iyo aad u weyn, bahallaha oo dhanna ay ka baqaan. xafsa meeshii ayay taagan tahay. waxaa u soo dhowaaday anacondadii.
saaxiibteen ismayna dhaqaajin. shabeelka jagwaarka iyo anakuundada labadaba waxay rabaan in ay Xafsa cunaan. shabeelka gadaal ayuu taagan yahay asagoo ilkaha soo bandhigayo, kana baqay jibista, laakiin damac ka qabo cunidda Xafsa. halka jibista ay isleedahay hal mar waa in aad gabadhaan laqdaa cuntaa. saaxiibtan Xafsa xaalad cabsi ah ayaa soo wajahday. jihooyinka oo dhan waxaa ka xigo bahalo webiga, jibista iyo jagwaarka madow. hadday isku tuurto waxaa kala jaray sidaan soo sheegnay bahalka biiraanha. haddaba Xafsa sidee uga badbaaday cabsidan aadka u daran iyo khatartan soo wajahayso? waxaan ogaan doonaa qisada qaybteeda labaad. ha moogaanin, nala socda.